السلام عليكم أصحابتا خالقة. waxaan rabaa inaan ka hadlo sidee xogta saaxiibkay ula socon karaa taleefankayga weliba xilli walba aan u baahdo. Haddii aad doonaysa inaad la socoto xogta saaxiibka, waxaad ku arki doontaan fiidiyogan. Daawasho wacan. haddii aad doonaysid inaad la socoto xogta saaxiibka ama informationka saaxiibkaaga, keliya taleefankiisa ayaad ka qaadaysaa, kadibna Chromesome-ka ama Google-ka ayaa gelinaysaa application lagu magacaabo CatWatchful. linkiga ayaan kugu reebi doonaa, halkaa kala deg. Chromesome-ka ayaan ku dhufanayaa, kadibna meeshaas search ku qoran tahay waxaan kusii qorayaa CatWatchful. waa application-kani sheegayay, asiga ayaan raadinayaa application-kaas. markii halkaas ku dhufto asigaaba meeshaan isoo qaban doono. waa kaa ku qoran tahay download CatWatchful. halkaas ayaan kasoo download garaysanayaa, waan ku dhufanayaa, kadibna asiga ayaa iisoo bixi doono. waa ka halkaa kasoo baxaya. intaan download garaysan, xarfaha meesha ku qoran ayaa halkan ku qoraya. waa 4 xaraf, waa HBFG. halkaas markii aan ku qoro kadib ayaan ku dhufanayaa download. application-ka oo isoo download garaysmaya. markuu isoo download garaysmo kadib toos ayaan geli doonaa. oo jeedin soo download garaysmaya. halkaas ayaan ku dhufanayaa. waa ka jeedid application-ka. markii aan furo, waa kaas application-ka waan soo dejisanayaa. open ayaan leeyahay, wuu soo degay. waad u jeedaa application-ka qaabkan ayuu u yaalaa. meeshaas ee accept ku qoran tahay ayaan tig saarayaa, kadibna continue ayaan leeyahay. continue markaan dhaho, application-kan waxyaabo badan ayaa laga rabaa inaad tig saarto si aad ula socoto qofkii aad rabtid xogtiisa inaad ogaato. location-ka ama meesha uu joogo inaad ogaado daartid, halkaas ayaad tig saaraysaa. mobilkiisa storage-kiisa hadaa rabto, recording audio-ga, contactigiisa, waxaa waxaa rabta tig ayaa saaraysaa. kaamirada, phone state-ka, waxaasoo dhan tig ayaan saarayaa. haddii aan mid ka tago, macnaheeda uma baahni waa xog inaan ka helo midkaas. mid kasta tig ayaan saarayaa. kii aan ka tago kaamirada kale haddaan ka tago, xogteedu uma baahni waa kaamirada. laakiin si ayaga dhan u helo, kulli tig ayaan saarayaa. meeshaan ay ilmaamin inaad tig saarto, sababtoo application-ka dhan waa inaad active garaysaa. meeshaan tig ayaan saarayaa. okay ayaan leeyahay, halkaana tig ayaan saarayaa. kadib hoos ayaan imaanayaa, kadibna application-ka ujeedaa CWF ayaa ku qoran. meeshaas ofta ah on ayaan ka dhigayaa. halkaas ayaan ku dhufanayaa, kadibna on ayaan ka dhigayaa. waa ujeedaa application-ka. hadda waan furi karaa. okay ayaan leeyahay, kadibna meeshaas ay ku qoran tahay set probability-gaas ayaan tig saarayaa. waxaa ii haray screen capture-kaas, asne tig ayaan saaray. halka keliya ayaa ii haray. kadib active ayaan leeyahay. markaan active gareeyo, continue ayaan leeyahay. halkaas ayaan ku dhufanayaa. kusii dhufanayaa. kadibna halkan waxaa gelinaysaa gmail-kaaga. ma ahan qofka aad xogtiisa u baahantaa gmail-kiisa, keliya gmail-kaaga ayaan gelinaysaa. password-ka ayaa mar labaad ku celinaysaa. labadaba password-kaaga ayaa gelinaysaa. waa password-kaaga iyo inaad password-kaada markale ku celiso. active ayaan leedahay. waa kaasa application-ka wuu kuu shaqeeyay. okay ayaan leedahay. application-ka waa la active gareeyay. qofka mobilkiisa ayuu hadda kugu jiraa, xog kastana asaa ku gudbinay. meeshaas waxaa ku qoraysaa mobilka aad rabtid xogtiisa inaad la socoto, magaciisa. waana mobilka hadda aad gacanta ku hayso oo aad ka qaado saaxiibkaaga. hadda mobilkan aan rabay inaan xogtiisa la socdo waa J2 Brain. halkaas ayaan ku qorayaa J2
Prime waa mobilka aan doonayo xogtiisa inaan la socdo, waana kan aan gacanta ku hayo oo iska leeyahay saaxiibkayga. markii aan G2 Prime qoro okay ayaan leeyahay, kadibna save waan nahay, hide ayaan iska leeyahay. Save-ka kadib waan hide gareynayaa, meeshaas ayaan ku dhufanayaa, hide ayaan leeyahay si uunan u arkin qofka aan xogtiisa la socdo. hide markaan dhawaan save gareynayaa, waxaan doonayaa qofkaas markuu mobilkii aan u celsho inuuna xitaa application ka arkin, si aan tartiib ula socdo xogtiisa siganan i ogaan. waan hide gareynayaa, dib waan ugu celi karaa taleefankiisa maxaa yeelay applicationka maba arkayo oo waan ka qariyo waa ujeedaa. taleefankayga ayaan soo qaadanayaa, waxaan rabaa inaan xogtiisa halkan la socdo. taleefankayga ayaan kala soconayaa xogtiisa idil, weliba second ayaan la socon karaa, daqiiqad keliya waxaan u baahanayaa haddana Chromesome inaan galo misane aan geliyo Cat Watch Full haddaad aan gelinaya, laakiin hadda waxaan gelinayaa Cat Watch Full login bas ayaan raacsiinayaa. magaca haddaad ayaan waxaan raacsiinayaa login, kadibna sida lamid ah ayaan gmailkaygii u gelinayaa iyo passwordkii haddaad aan gelshay. markii aan gelsho halkan ayaan ku qorayaa Cat Watch Full login. markii aan ku qoro waxaa ii soo baxaya sidatan. markii aan ku dhufto siga ayaa ii soo saari doona mawduuci. waad u jeedaa waxaa ku soo baxay. markii aad sii dhufato halkaas waxaa lagu dhahay geli email addresskaaga iyo passwordkaaga. uma baahnid qofka xogtiisa raadinaysa passwordkiisa ama emailkiisa kaliya, emailkaaga ayaa gelinaysa. waa emailkii hore aad soo gelisay taleefankiisa. markii aan galsho sidatan ayaa ii soo baxayso. halkan ayaan kala socon doonaa xog waliba oo ku saabsan saaxiibkayga, xitaa taleefanka simikaarka ugu jiro, charger inuu isticmaalaya in kale, codkiisa, wax walba halkan ayaan kala soconaya. haddii uu cod duubo, haddii uu sawir saarto, ama sawir haddii loo soo diro, ama fariimo kale, wax walba uu ku saabsanahay halkan ayaan kala soconaya. waxayna ka dhigan tahay sida aniga oo haysto taleefankiisa oo kale. wax walbana halkan ayaan si toos ah ugala socon doonaa. waana ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. mahadsanid. hana hilmaamin janaalka inaad subscribe saarto, like una sii share garayso.